iyo guddiga dastuurka hawshan ku mashquulsan aad waxaan uga hambaleynayaa wax badan baa golahu aad uga cabanayeen shaki weyn uga qabeen wax halka laga yiraahdo inaan la qaadin oo aan la dabagelin oo waxba la qorin laakiin maanta arrintan meesha ku aragnay waxay noo caddaatay in wixii halka laga yiraahdo iyadoo muuqaal iyo maqal ah labadaba in la tusay taasna waa hambaliyo aad u weyn oo ku dhiiranaynaa waxaan leenahay aad iyo aad baad taa ugu mahadsantihiin intaan gudagelin qodobada waxaan raacin lahaa waxaan yara xasuusinayaa baarlamaanka maalintii madaxweynuhu halan ka hadlayay uu lahaa 5 mas'alo baa noo yaala 3 aniga leh 2na idinka leh oo labadeena u baqaayay oo ay ahayd dastuurka iyo miisaaniyadda ansixintiisa 3 isagu lahaana oo inagu u baqaynay inaga u baqaynay 2na isaga inooga baqaayay 3 inaga u baqaynay wuxuu yiri waxaan soo qaadayaa oo ku maqnahay cafintii deynta iyo cunaqabatayntii dalka la saaray oo laga qaadayo iyo tii saddexaad ma xasuusto saddexdii madaxweynuhu ku soo guuleystay waxa muddo labadii madaxweynuhu inooga baqaayay inay taagantahay baarlamaanka waxaan leeyahay sida loogu jiro dastuurka aad buu u liitaay si xoog leh oo mugle dastuurka loo wado halna loo dhamaado saacadaha kan ugu dambeeya la baxayana ha laga joogsado oo si cilmiyana si arrinta loo fahmo oo marka la isku balaandhigo dastuurkana dhameystirkiisa dadajintiisa wax ka qabadkiisana inaan aad iyo aad ugu helanaano waa fariintii madaxweynaha inaan ka soo baxno haddii kale siduu sheegayay baa cadaanayso inaan ku aadi weyne labadii qodob isna saddexdiisi ku aaday wax ka qabtay waxay noqonaysaa in inagu tiisi ay run tahay marka taas boorin beega tahay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan guda galayaa dastuurka aad baa mahadsantahay qaldaarka iga daa billaah alayk bismillaahir rahmaanir rahiim qodobka cutubka labaad qodobka 10aad karaamada aadamuhu waa deeq ilaahay siiyay waa deeq ilaahay subhanahu wa ta'ala kuma naystay qof kasta oo bini aadam ah xuquuqda aadamahana deeqdaas ayay ka dhalatay isla waxaan qabaa isla qodobkii horey ugu jiray meeshiisa ku qornaa in loo daayo baan qabaa ka ra'yiga qodobka 11aad waxaan qabaa in la qaato farqada koowaad qaybteeda ah oo xirfadda dhalashada isirka da'da iyo afguridda ma garan toona xuquuqda iyo waajibaadku waxa way u siman yihiin xeer hoosaadka si waafaqsan shariicada islaamka qodobka kaasna waa qabaa oo soo bandhigida ah in la qaato isla qodobka 11aad farqadiisa labaad wax fal takoorida haddii natiijadaasi noqoto ishortaag ama erigelin xaqa qofka xataa hadduu falka si ula kac ah aan loo samayn taas waxaan jeclaan lahaa in la beeyaaniyo oo la jiciyo raalinaga ahaada bilaa okyaala lahay oo indhama jiraan waan fashil lahay raaliha laga ahaado isla qodobkaas 11aad firqadiisa afraad waxaan qaadanayaa qodobka afraad oo hadda lagu soo siyaadiyay oo ra'yahana qofna maqaam iyo maamuus uusan lahayn awgeed ugama baxsan karo la xisaabtan iyo ciqaab faldambiyeed uu galay waa uu galay weeye hadduusan gelin dee waa khasab malak hadduu galay isagoo mas-uuliyad sheeganaya iyo isagoo oo darajo kala sheeganaya marna ugama baxsan karo hadduu galo weeye hadduusan gelinna oo markaa ay ku caddayn inuu dembigaa galayna ma aha dee mid markaa lagu soo ogaayo waxaa ka mid ah qodobka dhowr jeer xildhibaanadu balbalaariyeen waxaa ka mid ah sida xasaanada baarlamaanka iyo xasaanado badan dad kale inaan markaa lagu soo gaban laakiin gabashada waxa keenaya haddii aysan jirinba dambi uusan gelin ama lagu caddayn baarlamaanka lala soo aadi maayo ama nin kale oo leh xuquuq kale leh cidna ma soo aadayso laakiin hadduu galo waayo qodobku waxaa ku qoran gelitaan waxa leeyahay hadduu galo weeye qodobka 13aad firqadiisa koowaad qof kasta wuxuu xaq u leeyahay
baa hore u qoray tala soo jeedintan waxay noqotay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay nolol sideed baa loo qaatay waxba lagama bedelin halka waxaan raacin lahaa nolosha la iska noolaado oo aan nabadi ku jirin qiimo yeelan mayso qof kasta xaq wuxuu leeyahay nolol iyo nabad nolol hadduu helo nabad hela hadduu nolol helo nabad hela saas ayaan qodobada u soo dhaweynayaa kuna ugana baxaya raalliga ahaada waxaan ku soo koobay intaa yar waqtiguna aad buu liita aad baa mahadsantihiin wax yaroo codsi aan raacin lahaa guddoonka baarlamaanka imaanshihiisa aad buu u tiro badan yahay marka hore bixitaankiisuna aad buu yaryahay xilliga la baxaayo jadwal warqada hala dhigo marka la soo qoro oo la saxiixayo bixitaankana in waqti uu jiro la saxiixayo qofka aan saxiixin bixitaankana hadhowdii tiishii hore uu yimi inay ka go'ayso sidaasaa lagu maamuli karaa shaqaalaha marka ama inkastoo baarlamaanku shaqaale ahayn laakiin si qofka loo ogaado inuu joogo controlkeeduna ku imaan kara wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu